indhaha iyo dhagaha ayaa waxay u taagan tahay guud ahaan dunida marka la eego waxaana dhammaanteen halis aan ugu jirnaa in ay nasalfato xiisadda u dhexaysa saddexda quwadood ee dunida ugu xooga badan marka la eego dhanka militariga ee ishaya kuwaasoo mid walba uu doonayo maamulidda guud ahaan ee dunida. ruushka wuxuu ku hanjabayaa inuu adeegsan doono hubkiisa nucleerka, shiinahana waxa wacd uu ku marayaa inuu weerari doono Taiwan, halka Kuuriyada Waqooyi ay tahay sheeko gooni u taagan. haddii aan si kooban kuu dhexgeeyo goobaha dagaalka, hubka nucleerka ee la isugu goodinayo waxa uu yaallaa horteenna, qaraxyada ciidamadana waxay ka dhacayaan gadaasheenna. halkee ayaan u cararaynaa ama aan u baxsan doonnaa? xiisadda ruushka iyo Ukraine. xiisadda u dhexaysa ruushka iyo sidoo kale Ukraine waa mid aad u sii ballaaranaysa sababo la xidhiira salka uu ku hayo taariikhda fog dagaalkaas. ruushka xilli sii horreysa wuxuu ahaa mid ka faa'iidaysta dhaxalka Ukraine, wuxuu bedelay luqadda iyo dhaqanka dadka Ukraine. sidoo kalena ruushka wuxuu aaminsan yahay in Ukraine ay tahay qayb dhulkooda ka mid a, iyaguna ay leeyihiin. waxay arrintaasi ay soo taagneed dhowrkii qarni ee lasoo dhaafay, laga soo bilaabo tan iyo xilliyadii soo ifbaxa ilbaxnimada ilaa laga soo gaaray xilligii Ukraine xurnimada ay qaadatay ee sanadkii 1990kii, markaasoo calanka gaduudnaa ee midoogii Soviet laga dejiyey hawada magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. dhinaca kale Ukraine waxay isu aragtaa inay tahay dal madax bannaan kana madax bannaan ruushka intiisa kale, balse in xukuumadda Kiev ay ka hoos baxda maamulka xukuumadda Moscow sanadkii 2014 kama aysan dhalanin madax bannaani buuxda ee waxay sababtay fidno aad u weyn oo reer galbeedka ay ka dhex abuureen ruushka iyo Ukraine. waxaa muuqata in dagaalka hadda ka soconaya dalka Ukraine uusan dhammaan doonin waqti aad u dhow. Ukraine waxay noqon doontaa midda ugu badan ee ku khasaarta dagaalka, maxaa yeelay waxay isku beddeshay goob dagaal oo ay ku hardamaan reer galbeedka iyo ruushka. muxuu Shiinuhu ka doonayaa Taiwan? taariikh ahaan Shiinaha iyo Taiwan waxay kala qaybsameen sanadkii 1949kii, markaas oo qowmiyiinta ay ka carareen in ay ku hoos noolaadaan xukunkii hogaamiyihii dalkaasi China ee xilligaas. waxay u carareen jasiiradda Taiwan waxaana halkaas ay kaga dhawaaqeen xukuumad ka madax bannaan xukunkii Shiinaha ee sanadkii 1949kii. gaar ahaanna hogaamiyihii xilligaasi ee Chiang Kai-shek oo kale talis lagu tilmaamayay. labada dhinacna waxaa muddo dheer mid walba uu ku goodinayay ama uu ku doodayay inuu yahay kan kale midka rasmiga ee matalaya shacabka Shiinaha. 30kii sano ee ugu horreeyay markii ay kala go'een Taiwan iyo sidoo kale Shiinaha waxaa labada dhinac dhex maray dagaalo goosgoos ah, iyadoo ciidamada shacbiga ee Shiinaha ay duqeymo aan kala joogsi lahayn ay la beegsan jireen jasiiradaha Taiwan u dhow, gaar ahaanna kuwa xuduudaha Shiinaha ka tirsan. balse labada dhinac ayaa heshiis xabajoojin ah waxay kala sixdeen sanadkii 1990kii. laakiin markaasi ilaa maantadan la joogo kadib eedeymo isdhaafsanayeen labada dhinac, Taiwan waxay afkeeda ay ka ilaalinaysay inay si rasmi ugu dhawaaqdo inay noqotay dal ka madax bannaan dhulweynaha Shiinaha intiisa kale. maxaa yeelay weli ma aysan gaarin heerka isku filnaanta oo tallaabadaas ay qaadi karayso. sidoo kalena iskuma halayn karaysa damaanad qaadka Maraykanka iyo inuu ka difaaci doono haddii weerar uu kaga yimaado Beijing. sidoo kale Maraykanka ayaa weli waxa uu ku taagan yahay mabda ah Shiinaha waa mid, taasi oo ka dhigan inuu Taiwan u aqoonsaneen dal ka madax bannaan Shiinaha intiisa kale. waxaana taasi ay keenaysaa inay xukuumadda Taiwan ay qayb ka sii ahaato dhulweynaha Shiinaha oo sinaba aanan kaga go'i karaynin. markii talada Shiinaha uu la wareegay madaxweynaha iminka talada haya ee Xi Jinping, xukuumadda Beijing waxay sii adkaysay aragtida Shiinaha oo mid ah, iyadoo sidoo kalena cadaadiska ku sii kordhisay jasiiradda Taiwan. waxaanay dib u soo celinta Taiwan ay ka dhigtay mid ka sii dhow sidii markii hore ay ahayd, taasi oo ahayd ballanqaad uu sameeyey xilligii uu ku jiray ololihiisa doorashada hogaamiyaha iminka talada haya Xi Jinping, kaas oo teeramkiisii saddexaad oo isku xiga maamulaya Shiinaha. sidoo kale ciidamada Beijing ayaa sii labalaabay dowlatusyada militari ee isugu diyaarinayaan duulaanka Taiwan, xilli diyaaradaha dagaalka ee Shiinaha ay 10 mar ay ku xadgudbeen hawada Taiwan sanadihii la soo dhaafay. 10 sano ka hor qofna ma aysan rumaysanayn in Shiinaha uu leeyahay awood ciidan, taasi oo ah inuu diyaar ugu yahay in weerar dhanka dhulka iyo badda uu ku qaadi karayo Taiwan. laakiin mas'uuliyiinta Taiwan waxaa hadda si aad ay kaga baqayaan inay suuragal ay tahay qorshaha Shiinaha uu ku weerari karayo jasiiradooda. ciidamada Shiinahana awood ay u leeyihiin inay fuliyaan weeraro noocaasi ah. sidaas daraaddeedna waxaa lagama maarmaan ah in Maraykanka uu caddeeyo mowqifkiisa iyo inay diyaar u yihiin inuu difaaco jasiiradda haddii Shiinaha uu ku soo duulo. ugu dambeyntii Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale madaxda dowladda Ruushka ayaa si wada jira waxay u sheegeen in Shiinaha keligii uusan ahaan doonin, isla markaasina ay garabkooda ay yihiin haddii uu qarxa dagaal u dhexeeyo Shiinaha iyo Taiwan iyo Maraykanka. taasi oo ka dhigan in dunida isu diyaarinaysa dagaalka saddexaad ee dunida, suuragalna ay tahay in la isu adeegsado hubka waxgumaada ee nuclearka.
waxaa tani sidoo kale ay ka dhigan tahay in meelo kala duwan mar walba qarkay u saarayeen in dagaalka saddexaad ee dunida uu ka bilaaban karayo. hadda Ukraine way sahlantay in dagaalka saddexaad ee dunida uu ka bilowdo marka la eego sida ay dowladaha reer galbeedka iyo Ruushka halkaasi ugu dagaalamayaan. daqiiqad oo qura ayayna wax walba isbedeli karayaan. sidoo kale marka la eego Kooriyada Waqooyi xiisada sidaani oo kale ayaa ka jira. dhanka Shiinaha iyo Taiwan iyo Shiinaha iyo Japan iyo Mareykankana marka la eego xiisado kale oo waaweyn ayaa ka jira, taas oo sekano oo kaliya isku bedeli karayaan xaaladda guud ee dunida iminka ay ku jirto. taasi waxay ka dhigan tahay Shiinuhu inuusan keligii ahaan doonin mar haddii madaxda Kooriyada Waqooyi iyo Ruushka ay u ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan, sababtoo ah labadaani dowladood waxa ay si weyn ula dagaalamayaan wadamada reer galbeedka. sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybta hoose aragtidaada ku reeb, aad baad u mahadsan tahay.